kulanti wacan wanaagsan daawadeel kuna soo dhawaada Somali News TV oo xilidan oo kale aad ka daawataan warar iyo warbixino kala duwan warkaanadeenan waxa uu ku saabsan yahay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay joogtaa xilligii uu madaxweyne Farmaajo uu ka degi lahaa magaalada Hargeysa ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Guuleed Khadar ayaa sheegay in la gaaray xilligii dib ay u bilaaban lahaayeen wadahadalada dawladda Soomaaliya iyo Somaliland Khadar waxa uu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay diyaar u tahay in mar kale la dardargeliyo sidii dib loogu bilaabi lahaa wadahadaladii hakadka galay waxa uu ra'iisul wasaare ku-xigeenku sheegay in qorshahan uu ahaa in marka hore ay wada hadal yeeshaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Muuse Biixi Cabdi bishii Abriil sanadkan balse uu baaqday dagaal ka dhacay deegaanka Tukaraq waxa uu sheegay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka in madaxweyne Farmaajo xilligan uu diyaar u yahay inuu ka dago magaalada Hargeysa isagoo calanka Soomaaliya sita nuqul kamida hadalka Khadar ayaa ahaa haddaba waxa la gaaray xilligii madaxweynaha uu ka degi lahaa magaalada Hargeysa kadibna uu u bilaaban lahaa wadahadalada waxa uu sidoo kale la gaaray xilligii madaxweyne Muuse Biixi uu ka soo degi lahaa Muqdisho hadii cid walba ay joogto booskeeda wax soconaya male ayuu yiri ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo la hadlayay warbaahinta sidoo kale waxa arintani ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee Somaliland Saad Cali Shire isagoo dhankiisa sheegay in aysan wali la gaarin in madaxweynaha Soomaaliya uu ka dego magaalada Hargeysa balse ay ka horeyso wadahadal waa wadahadal Soomaaliya iyo Somaliland iminka waxa ay ku jiraan hakad kadib markii dawladdu ay fargelin ku sameysay heshiiskii dekedda Berbere ee Somaliland ee Imaaraadka si ay noogu suurta gashay in aynu wadahadalka bilowno waxa ka horeeya in aynu is-i'tiraafno ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland si kastaba ha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa hore u sheegtay inay ka shaqeyn doonto sidii isku dhawaansho labada dhan isla markaasina ay wada kulmayaan labada madaxweyne intaas ayaan daawadeel ku soo gabagabeynaa warbixinteenu kaga hadlaynay dawladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay in madaxweyne Farmaajo uu ka degayo magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland haddii aad ku cusub tahay Somali News TV fadlan ha ilmaamin subscribe-ka like-ga share-ka si wararkeena iyo warbixinadeena dambe aad ula socotid insha